waxa meesha isku sameeyeen farank aheed wax la isla ogaayeen ahaa taas way ka qaldantay farank la isla ogyahay la sameeyaa ma ahane farank kale oo la isla ogeyn ma bala sameeyo runta taas ay tahay kulanti wacan daawadeyaasheena qiimaha leh ee ku xiran barta aan YouTube ku leenahay ee Badda Cas Media kuna soo dhawaada warbixin xiiso badan muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa lamaanihii sameeyay muuqaalkii ugu hadalhaynta badnaa toddobaadkan baraha bulshada oo soo jawaabay iyagoo fariin culusna soo diray waliba labadii maalin ee u dambeysay sida aad ka warqabta waxa baraha bulshada si weyn ugu faafay muuqaal dad badan aysan jeclaysan oo ay sameeyeen lamaane isticmaala barta bulshada ay ku kulantay ee YouTube haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa lamaanahaas oo muuqaal jawaab soo duubay iyo arrinka sida uu isku bedelay inta muuqaalkan bilaaban waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay marka ay kugu horeyso oo soo boqoto janaalkan aad ku cusub tahay in subscribe aad noo saarto sidoo kale mobilka aad furato mahadsanid aan ku bilaabay warbixinta waxaa jiray muuqaal hadalhayn fara badan oo ka dhashay oo baraha bulshada si weyn loogu faafiyay labadii maalin ee u dambeysay waxaanu ahaa muuqaal ay sameeyeen lamaane Soomaaliyeed oo isticmaalo barta YouTube-ka isagoo markaas muuqaalka noqday sidii ay u maleynayeen si ka duwan sida ay sheegeen waxay ula jeedeen inuu yahay prank ama muuqaal ay ku madadaalinayaan dadka ku xiran channel-kooda ama muuqaal madadaalo iska ah laakiin waxa uu isku bedelay mid ceeb iyo lama arkaan ah oo dad badan oo daawaday ay la yaabeen qaarna ay ka xumaadeen arrinta xishood la'aanta ah ee meesha ka dhacday marka hore inta aan daawan muuqaalka ay soo duubeen lamaanahan ee jawaabta ah fariintan ay ku soo direen bal aan wax yar ka daawano sida ay wax u dhaceen iyo qorshihii khaldanaa ee muuqaalkaasi ku jiray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteed miyaa aragtaan baraanka yaa rabaa cawad inaan sameeyo daadira ku sameynaa tan hadaa aragtaan waa yaabaysan bahalkan sida ujeedaan xalahami helbar family ما فهمت بهالكان في عيان كلان لما كما عرفت أو كجيفان وتوسينا كلان هوريا لو سو بروي كمبني سو بروي لك هذا ها روا داد نقبروي ما عرفت عوض فرصمين دونا أركيا كلان بهالك عوض وجمعي سنة نقص وجمعي سنة أصحابي لسه يا واد ما يا حبيبتي والله هرتك عليك لا هذا بكافي عم بقى ما إله هنيك كان فهمتي ما هذا دادر أنا برانك إنك صنعي هو وجدنا كاميرا زمانك وجد أنا إقرصنتها وجد كاميرا زمانك أصحابته أوكي وجد حارة بحرك وجد واتق أنا نومله ما أنا قصة نحكوكي بحرك أنا ربع ناسيو هو إنه جاء على ما بتاعه عوض إنه قلنا نقصد إن السكاء في جارب تمام هذاك وتعالى هذاك وتعالى كده والي ها دكتور حكاية لي دكتور كده هذاك وتعالى يا حدا يا هذاك وتعالى عوض كم برانك ما كده بس كده ترى برانك له عوض كعبسو برسو حق صفيرنا حالتنا برينا غرغور صار كدونا بس كده بهالكم برانك عوض كاميرا أما درسينا جو وانا يا بيا أنا صرت إن سيارة وبروين هاي إن سيارة قلت لا شو محل جارة إيده وحق ماشي دول شو كده قاعدة كوتال سنك تعال بدينا arrinta ugu weyn ee dad badan ka careysiisay ayaa ah ereyada foolxumada ah ee gabadha ay ku hadashay iyo sida ay u ceebeysay saygeeda oo falkan ay ku sameysay inkastoo isaga ku dhiisaba arrintan oo wax ka ogaa ama muuqaalku ah mid la isla ogyahay ama ay isla soo diyaariyeen sidoo kale waxa ku jira sida aad daawanteenba gabdha sida aan filaya asxaab ay leeyihiin kuwaas oo qaladka u sii horseeda halkii ay ka hor istaagi lahaayeen جبس أنا كريم وقتها شاه عنك عن كريمه فرحة لسه استابو ماذا معدن وين يا باز إدي جرت شاف عالي إدي جرت معدن مو عم وجعله معانا مو معايزة هذا معاه عاوز صار دافنو شو طلع نوصل قال كده خلق فريان جونا سمو مع مستيدا قلت جيفك قاعد ما خلق مع مستدار الصبح نقول كنجينو مع ديسك كاسر سبعة بدور تقول كنجي سبعة قول كنجي نبض سبعة تقول ولا سبعة قول كنجي والله بالحق سبعة أنا سبقول لي سبعة أنا سبعة قول كنجي بقى أنا والله بحب براكي وسمعنا مع كاميرا قرصن والله أنت والله كاميرا قرصن ولا كاميرا قرصن ولا كاميرا قرصن صبح يا أخي أنا
la yaab maahan in Soomaalida si qaldan ay u isticmaalaan ama ay uga faa'iideystaan baraha bulshada waxaana jira muuqaalo toban ujibaar ka sii daran midkan hadda aan daawanay oo ceeb iyo anshax xumo ah laakiin waxay ugu duwan yihiin kan ayaa ah inay yihiin qoys dhan oo sharaftoodii ku ciyaaray sababta ugu weyn ee sidaan ay u sameeyeen ay tahay in muuqaalkan ay ku helaan daawasho si ay lacag uga sameeyaan waa yaab Shariifo dhimatay oo xishoodkii dhamaayay intaasi kadib waxaa muuqaal soo duubay ninkii meesha ku ceeboobay ee ilaalin waayay sharaftiisa iyo tan xaaskiisa iyo qoyskiisaba ilan ceeb looma dhinto waxa uu sheegay in wax qaldan uusan sameynin isagoo wariba weerar culusna ku qaaday dadkii arrintan ka dhidhiyay ay ka soo hadlay waa kan muuqaalkiisa bal nala daawada marka asxaabay waxaan rabaa caawa barnaamijka oo xalay oo YouTube-ka wax ka dhacay waa aragteen oo maleynaa social media oo dhan wax ka dhacay sawirkayga meel kasta wareegay waxaan u sababay walaalkayga oo fanaanka ah oo CK la yiraahdo CKO adii marka ugaasnimo isku sheegtay ugaasnimadaadaan rabaa caaw inaan soo bandhigo oo aniga inaan nin fidnoolo ah igu sheegtay weliba ano mar oo badan oo shaacan cabay ku sheegtay markaan meeshaas wax qaldan kuma sameeynin wax meeshaas oo lagu kala socdo marka anaga kaamirada basas luurida wax lagu kala dareero ay barada taas way ka hoos bixin haddana aniga inaag isku qabno oo xalaashiis ilaahay isku baneeyanahay waxa meeshaas ku sameeyeen farankii ahayd wax la isla ogaayeen ahaa taas way ka qaldantay faranka la isla ogyahay la sameeyaa ma ahane faranka kale oo la isla ogeyn ma bala sameeyo runta taasay tahay intaas ayaan rabaa in warbixintan aan ku soo koobo balse inta aan ka bixin waxaan fariin u diri lahaa kuwa iyagana ku howlan inay sameeyaan muuqaalada ceenkan oo kala ah بريه قدام بيه وحاسو بحي مقالو آدي أدو فالحون أو برها بلشة سوقلي قارهان قوسيسكو أو بهاد قصو بيري دادكي مركي هرفو الحمد أبريري أما قبله إسقاويني يويلشي قبلها مركا خاويني مقالة كسو دوبي marka hore qoysasku waxay ahaayeen kuwa xijaaban ama iyagu xijaaban soo hadla ama iyagu asturan muuqaalo fiican oo wax laga dheehan karo ama wax laga kororsan karo soo tabiya ama bulshada u soo jeediyay balse hadda faraha ay ka sii baxayaan gaar ahaan marka loo fiiriyo muuqaalada loo yaqaan prankiga oo si qaldan ay u fahmeen Soomaalida intaas ayaan rabaa inaan warbixintan kaga baxo waan ku mahadsantahay daawashada daawatay muuqaalkan janaalka aad ku cusubtaa waxaan markale ka codsanayaa in subscribe aan noo saarto sidoo kale gamalka aad furato mahadsanid intaas ayaan rabaa inaan warbixintan kaga baxo waan ku mahadsantahay daawashada daawatay muuqaalkan janaalka aad ku cusubtaa waxaan markale ka codsanayaa in subscribe aan noo saarto sidoo kale gamalka aad furato mahadsanid